saynisyahankii Wheeler oo sirtii ugu weyneed dunida suuli tareen ku ilaabay. dukumenti 6 bog ka kooban oo ay ku dhan tahay xogta ku saabsan sida loo diyaariyo hydrogen bam ayaa baqshada lagu riday loona dhiibay agaasimaha mashruuca. xilligaasna bamkan halista badan oo ah kii ugu horeeyay ee la sameeyo waxa haystay oo keliya dalka Mareykanka. kaga boga muuqaalkan oo dhammaystiran insha Allah. todobadii bishii Janaayo 1953 saynisyahanka nukliyeerka ee lagu magacaabo Wheeler ayaa mas'uul ka ahaa mashruuca Manhattan oo ah mashruuca hirgeliyay bamkii atomiga ee ugu horeeyay xilligii dagaalka. ilaa 1938kiina wuxuu agaasime ka ahaa mashruucan isagoo maadada fiisigiska ka dhigayay jaamacadda Princeton. waxa uu tareenkii habeenimo u raacay Washington DC si uu ula kulmo wakiilada shaybaarka cilmi baarista badda ee Mareykanka si uu ugala hadlo mashruuca iyo halka uu marayo. si kastaba ha ahaatee, maadaama uu hadda ku sugan yahay caasimadda Mareykanka, wuxuu go'aansaday inuu shakhsi ahaan la wadaago aragtidiisa ku saabsan bamka hydrogen-ka guddiga wadajirka ah ee tamarta atomika. dukumenti 6 bog ka kooban oo ay ku dhan tahay xogta ku saabsan sida loo diyaariyo hydrogen bam ayaa baqshada lagu riday loona dhiibay agaasimaha mashruuca oo ahaa Wheeler. xilligaasina bamkan halista badan oo ah kii ugu horeeyay oo la sameeyo waxa haystay oo keliya dalka Mareykanka. habeenkii dukumenti ayay soo saareen macluumaad ayayna ka qorteen. subaxii markii uu waagu baryay, halka uu dukumentiga xafiiska uga tegi lahaa, Wheeler ayuu sii qaatay. wuxuu la aaday dhanka suuliga, kadibna halkii uu baqshada saaray ayuu kaga soo tegay. waxyar kadib wuxuu xasuustay inuu baqshada muhiimka ahayd inuu suuliga uga soo tegay, iyadoo xilliga suuliga saynisyahanka uu ka soo baxay uu qof kale kaga dambeeyay oo isticmaalayay. markii uu arkay inuu ninkii suuliga ku jiray uu soo baxay, ayuu si degdeg ah suuligii u galay. wuxuu gacanta ku soo dhigay baqshadii uu meesha kaga tegay, wuxuuna aad ugu farxay inuu baqshada muhiimka ahayd ee ugu jirtay sirta muhiimka ah inuu soo helay. wuxuuna ku soo laabtay qolkiisa oo wuxuu galay alaabtiisa inuu xirxirto. muddo kadib, markii baqshadii la furay, waxaa baqshada ku jiray dukumentigii ay ku ogaayeen mid aan ahayn oo waraaqihii sirta ee ku jiray lagala baxay. kadibna waxaa bilowday baadigoobka waraaqihii muhiimka ahaa ee la waayay, waxaana laga baaray goob walba ay islahaayeen waad ka heli kartaan. xataa xarunta tareenka Washington ku yaala ee ay saynisyahanadu isticmaalaan rakaabkii saarnaa oo dhan waa la baaray, balse baaritaanka laguma guuleysan. Wheeler waxaa walaac iyo walbahaar xoogan ku abuurtay dukumentiga la waayay inuu gacanta u galo sirdoonka midowga Sofiyeeti ama Ruushka. markan fursadda keliya ee u bannaan waxay ahayd inuu guddiga wadajirka ee atomigada uu ku wargeliyo dukumentigii muhiimka ahaa inaan far lagu hayn. 5 toddobaad kadib, Charles Lyons oo sirdoonka Mareykanka ka tirsanaa wuxuu baaritaan uu ku bilaabay 5 qof oo Wheeler tareenka la saarneed. tuhna uu soo galay. waxyaabaha warqadda baqshada ku jirtay uu habeenkaas Wheeler ka akhriyay weli waa qarsoodi, maadaama aan wax xog ah laga helin wareysiga Wheeler ee FBI-da la yeelatay. hase yeeshee, wuxuu ahaa mid xaqiijinayay Mareykanka inuu diyaar u yahay tijaabo lagu guuleysta oo hubka nukliyeerka ah. waxaa xilligaasi Mareykanka diyaar u ahaa dhowr nooc oo ka mid ah hubka nukliyeerka oo diyaar u ahaa in la isticmaalo. Wheeler baariyaasha wuxuu u sheegay xogta sirta ee baqshada ku jirta
inay ka mid ahayd xog farsamo oo faahfaahsan oo ku saabsan sida loo sameyn karo bam casri ah oo ka duwan bamka atoomiga ee la tijaabiyey. dukumentiga bamka atoomiga ku saabsan ma lumin ama lama waayin mid ka mid ah xilliyadii ugu adkaa ee uu socday dagaalkii qaboobaa, waxaana xilligaasi 2 sano iyo bar socday dagaalkii Kuuriya oo ay markaa ka muuqanin wax astaan ah oo muujinaysa inuu soo gabagaboobayo. baaraha sare ee kiiska Joy McCarthy ayaa si weyn uga walaacay inay xogtaasi gacanta u gasho wadamada shuuciga ee ku yaala qaaradda Aasiya. dukumentiga sirta ee bamka hydrojiinka ayaa laga yaabaa inuu Wheeler habeennimadii ayna dhici karto in lagu waayay dhismaha tareenka, shandadaha ama sariirta uu habeenkaa seexday. golaha amniga qaranka badankood waxay rumaysnaayeen in sirdoonka midowga Sofiyeeti gacanta u galay sirtaas dukumentiga ah ee ku saabsaneed sida loo sameeyo bamka hydrojiinka ah.